بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal markale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeeni nutritionka iyo dietka maantana waxaan jeclahay in aad uga hadlo sida sawirka gadaasheeda aad uga aragtaan ama aad uga jeedaan avocadada ama mataqaana qudaarta loo yaqaano avocado un baan dhahnaa anaga af Soomaali waxa lagu yiraahdo kale idinka ii sheegi doono hadduu alla idmo cuntooyin fara badan oo waxaa jira erebixin aan looga heli karin af Soomaaliga marka waxaan jeclahay in aan arrinkaasna aad igala shaqeysaan ama aan iska caawino ahmiyadda ay leedahay avocadada maxaa u rabtaa inaad u cuntid waxaan jeclahay in aan ka hadlo su'aalahaas maanta avocadada waxa waaye waa qudaar xaqiiqi aad iyo aad muhiim u ah waxyaalo fara badan ayayna qofka bini aadanka ah u tartaa waxyaalaha qaar ka mid ah ayaan jeclahay maanta in aan idinla wadaago avocadada muhiimadda ugu weyn ama ahmiyadda ugu weyn ama faa'iidada ugu weyn ee leedahay ama ay ka wada siman yihiin iyaga oo dhan waxa waaye avocadada waxay u fiican tahay maskaxda iyo jirka ay u fiican tahay waxay leedahay waxaa ku jirta mataqaana saad aragtaan dufan ayay leedahay ama mataqaana fat ayay leedahay fatkaas waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay healthy fat ama dufankii caafimaadka qabay inuu yahay dufankaas marka waxyaalo badan ayuu u fiican yahay laakiin maskaxdaada waxay ku shaqeysaa healthy fat ayay ku shaqeysaa dufanka fiican ayay ku shaqeysaa waxaa ku jira mataqaana macdano ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay qofka xusuustiisa oo kale in ay fiicnayso waxaa loogu talagalay qofka mataqaana waxbarashadiisa oo kale ila maskaxda way meesha wax laga barto in ay fiicnaysiiso ay kor u qaado ayaa loogu talagalay marka healthy fatka saas ayuu ku fiican yahay waxyaalaha healthy fatkaas magac kale ayuu leeyahay oo haddii aad aragtaan laga yaabo omega 3 fats ayaa la yiraahdaa sidoo kale mataqaana waxaa laga helaa fishka ama mataqaana kalluunka gooni ayaan uga hadli doonaa iyo cuntooyinka kale ee laga hadlo laakiin maskaxdaadu way u fiican tahay haddii aad cuntid avocadada faa'iido labaad ama laga helo waxa waaye waxaa lagu tilmaamaa avocadada inay leedahay proteinka fiican inay leedahay ayaa lagu tilmaamaa sababtoo anaga bulsho ahaan proteinka meesha kaliya aan ka helno waxay u badan tahay hilib badan ayaan cunaa hilibka ariga hilibka mataqaana maybe geela haddii aan Soomaaliya joogno iyo mataqaana chickenka iyo mataqaana digaagada hilibkeeda ayaan cunaa laakiin proteinka dabiiciga ah waxyaalaha ugu fiican ee laga helo waxaa ka mid ah mataqaana ii sheeg bahashan la yiraahdo avocadada marka proteinka fiican haddaa heshidna lafahaaga ayuu u fiican yahay waxa u fiican yahay mataqaana lafahaaga murqahaaga ayuu u fiican yahay waxa u fiican yahay cellska uu adkeeya proteinka fiican marka meesha uu ka imaanaya proteinka ayaa laga rabaa meel fiican inuu ahaado avocadadana waa meelaha ugu fiican xaqiiqdii proteinka fiican laga helo marka taasna waa faa'iido labaad ama ahmiyadda labaad ee ka dhigi karta qof cuna avocadada in aad noqotid faa'iidada saddexaad waxa waaye avocadada waxay leedahay mataqaana antioxidants waxay yiraahdaan antioxidants waxa waaye waxyaalo cuntooyinka laga helo oo jirka ka difaacaya cadowga banaanka oo imaanaya ama cadowga ku soo socdo marka jirkaaga waxa waaye dagaal badan ayuu ku jiraa hadii waxa laga yaabaa saas inaad u fakirin weliga laakiin waxa laga yaabaa xanuunada qaarkood oo kale inay helaan jirkaaga oo daciif ah inay helaan oo ay ka faa'iideystaan waxa laga yaabaa ma garanaysaa viruska qaarkiis in uu helo mataqaana systemkaaga gudaha oo daciif ah markaasna uu ku soo galo marka antioxidants bay leedahay avocadada waxayna difaacdaa oo ay ka hortagtaa cadowga aadan arki karin ee jirkaaga ku soo socda ayay difaacdaa marka faa'iidadaasna waa faa'iido saddexaad ee avocadada aad ka heli kartid faa'iidada afraad ee avocadada aad ka heli kartid waxa waaye avocadada waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay cuntooyinka fiberka laga helo fiberka waxa waaye maado cuntooyinka qaarkiis laga helo maadadaas waxa waaye wax badan ayay u tartaa iyadaa kala baxda laba nooc bay u kala baxdaa soluble iyo insoluble fiber baa la kala yiraahdaa 10 kale aan kaga sheekeyn doonaa uu dheer yahay laakiin muhiimadda waxa waaye waxay ka dhigaysaa avocadada xabad avocado haddaa cuntid waxay ka dhigaysaa qof mataqaana cunto fiican cunay oo satisfied ah oo aan gaajo aanan qabanaynin
sababtoo ah quality-ga iyo tayada afakaadhada laga helo ayaa waxay tahay tayo xaqiiqdii aad iyo aad u weyn oo jirkaagu u baahan yahay. marka waxaa laga yaabaa xabad afakaadho ah in qado ay ku noqon karto laga yaabaa nafaqo fara badan ayaa laga helaa. marka fiberkaas markii jirkaaga uu galo oo uu ku dharjiyo oo aad noqotid qof mataqaanaa faraxsan oo cunto fiican cunay oo si fiican dareemaya aad noqotid, waxaa arrinkaas mataqaanaa ka hor imaanaya in weight ama culays zaa'id ah uu ku koro way ka hor imaanaysaa. sababtoo ah culayska zaa'idka dadka uu koro waa dadka mar walba cuntooyinka ku noqnoqda, sababtoo cunto aan tayo lahayn markaad cuntid gaajadaada ayaa badnaanaysa. gaajadaada markay badnaatana waxaa dhacaya waxaa cuntooyin fara badan baa cunaysaa, marka calorigii ayaa fara badnaanaya aad cunaysay, jirkaaga waxaad arkaysaa habeenka labaad ama maalinta labaad isagoo aad u burnaaday, sababtoo cuntadaada kamaada fakarin. umaadan fakaraynin wax tayo leh inaad cuntid, laakiin waxaa u fakaraysid wax mataqaana naftaadu ay jeceshahay in aad cuntid ayaa u fakaraysid. marka waxaa waaye fiberkaas faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay. faa'iidada ugu koowaad aan ku siinayo waxaa waaye weight loss ayaa ku imaanaya ama mataqaana aad ka helaysaa. faa'iido kale oo avocadadu ay leedahay waxaa waaye haddii aad u baahan tahay xataa weightkaaga balance inuu noqdo, in meeshii loogu talagalay uusan ka dhaqaaqin, afakaadhada waa cuntooyinka ugu fiican ee ka dhigi kara saas. sababtoo waxaa waaye waxay ku siinaysaa in jirkaaga uu fiicnaado meeshaas mataqaanaa loogu talagalay. tusaale ahaan oo kale qofka markuu weedka iska rido ma garanaysa anaa sameeyey saas, dad badan oo sameeyana way jirtaa, waa weydiin kartaa. qofka markuu culeyska iska rido dan wuxuu u baahan yahay in culeyskii uusan sii soconin, sababta waxaa waaye jirkaaga inaad mataqaanaa waqti aad gaaraysid waxaa jira mataqaanaa meeshii loogu talagalay aad gaaraysid. marka afakaadhada oo kale cunto weyd kuma saarayso, sababtoo mar walba saan soo sheegnay waxay ku siinaysaa ma garanaysaa fiberkaas ku siinaysaa, gaajadii way ka mataqaana way kaa reebaysaa. marka balance weydkaaga inuu noqdo ama miisaankaaga uu noqdo, afakaadhada way kuu fududeynaysaa. faa'iidada kale oo aan raba inaan kusoo gabagabeeyo waxaa waaye barnaamijkeena maanta, afakaadhadu waxay leedahay faa'iidooyin aad u fara badan oo xagga vitaminada ah. vitamin walba oo jirkaaga u baahan yahay avocadada waa laga helaa. haddii vitamin C uu noqon lahaa, haddii vitamin K uu noqon lahaa, haddii vitamin B uu noqon lahaa, haddii vitamin D uu noqon lahaa, vitaminadaas oo dhan jirkaaga waa laga mataqaanaa afakaadada waa laga helaa. jirkaagana waa wuxuu u baahan yahay waaye. marka waxaan jeclahay ahmiyadda afakaadada, qiimaha ay leedahay, faa'iidooyinka ay leedahay in aad maanta barnaamijkeena ka hesheen. inta aan mar kale aan iskaga arki doono cajiladan dadka kale la wadaaga, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.